Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaanu ka hadlaynaa quraacda ugu fiican ee subaxdii la cuno. Ma doonaysaa inaad qorshaysid qorshahaaga cunteed aad maalin walba cuntid? Quraacdu waa mid ka mid ah saddexda waqti ay Soomaalidu wax cunto midka ugu muhiimsan oo laga maarmaanka ah. Laakiin qof walba wuxuu doonayaa quraac dheellitiran oo ku habboon inuu cuno. Marka waxaan kula wadaagayaa quraacda ugu fiican ee subaxdii hore aad ku quraacan karto. Waana quraac aad u borotiin badan oo nafaqo badan ay ku jirto, jirkaagana isku dheelitiraysa. Nambarka koowaad waa ukunta. Ukuntu waxay ka mid tahay waxyaabaha aadka u fiican in subaxda hore lagu quraacdo, waana borotiin badan baa ku jira. Ukunta dadku ma aaminsana inay subaxda hore lagu quraacan karo, sababtoo ah qof walba wuxuu rabaa wax uu ku dhergo inuu cuno. Laakiin ukuntu waa midda ugu fiican ee subaxda hore lagu quraacan karo. Lambarka labaad waa boorashka. Boorashka waa midka ugu fiican ee subaxda hore. Waxyaabaha lagu quraacdo kan ugu fiican subaxda hore. Dadka qaarkood haddaad ku tiraahdi subaxdii waxa ugu fiican ee lagu quraacan karo waa boorash, waxay ku leeyihiin ma nin weyn ayaa wax cuni karaa boorash. Taasna waa hadallada ay Soomaalidu tiraahdo. Laakiin quraacda ugu fiican ee subaxda la cuni karo waa ukunta iyo boorashka. Haddii intaas aad subax walba aad ku quraacato, waa hubaal dheydka jirkaagana uu dhismi doonaa. Quraac borotiin leh oo jirkaaga wax taraysan waad heli doontaa. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iido. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, ha naga ilaawin inaad subscribe noo saarto. Mahadsanid. Waxaad nagala socon doontaa waxyaabo badan oo faa'iido adiga ku leh.